bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa barteen YouTube-ka ee National TV qodobada wararkeena aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada Ruushka oo gudaha u galay caasimadda Ukraine ee Kiev qaraxyo waaweyn oo laga maqlayo caasimadda dalka Ukraine iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaad warkeena ku daawan doontaan qodobada kale ee wararkeena waxaa ka mid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo malaayiin dollar looga dhacay dalka Kenya sidee warkeena ayaad ku daawan doontaan qodobada kale ee wararkeena waxaa ka mid ah golaha wadatashiga qaran oo soo saaray 6 qodob iyo waqtiga cusub ee la dhameystirayo doorashada golaha shacabka haddaba waqtiga cusub ee la mudeeyay ma lagu dhameyn karaa doorashada warbixin ayaan idinkaga hayaa sidoo kale cabsi laga qabo in al-shabaab ay la wareegaan degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho xilli hay'adaha ammaanka ay ku milmeen ama ay ku mashquuleen arrimaha doorashooyinka iyo madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo la kulmay isimada dhaqanka gobolka Bari wararkaasi iyo kuwa kale ayaan faahfaahin doonaa waa habeen jimco ah Sabti ayaa soo galaysa 25 Febraayo 2022 hadaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-kana kadibna fura gambaleelka sidoo kale like saar muuqaalka si ay dad badan u daawadaan u diyaar garoow faahfaahinta wararkaasi waataay aan ku bilaabo dalka Ruushka ayaa duulaan xoogan ku haya dalka Ukraine maalintii labaad qaraxyo waaweyn ayaa maanta mar kale laga maqlay caasimadda dalkaasi ee Kiev sidoo kale dhawaqa seeriga colaada ayaa laga maqlayay magaalada galbeedka dalkaasi ku taala ee Lviv oo aan sida uga fogeyn xadka ay Ukraine la wadaagto Poland magaaladaasi oo ay si kumeel gaar ah ugu guureen safaaradaha shisheeye ee Ukraine dhinaca kale wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay khamiistii shalay in ciidamada Ruushka ee Ukraine duulaanka kaga ah dhinaca Belarus ay Kiev u jiraan 32 kilomitir oo kaliya ciidamada Ruushka ayaa saacadihii ugu dambeeyay gudaha u galay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev qasaaro xoog leh ayuu dagaalkaasi geystay sarkaal waaxda difaaca Mareykanka ka tirsan ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay lumiyeen habkii ay ku socdeen ee howlgalkooda ku aadan qabsashada dalka Ukraine sida ay tabisay wakaalada wararka ee Reuters sarkaalkan ayaa sheegay inaysan jirin wax xarun dadweyne ah oo laga qabsaday Ukraine ilaa hadda balse qaar ka mid ah gantaalada Ruushka ay saameyn gaarsiiyeen meel ay dad rayid ah deganaayeen waxa uu intaas ku daray in sidoo kale weeraro dhanka internetka ah lagu qaaday warshada tamarta biyaha soo saarta ee ku taala koonfurta dalka Ukraine haddaba xogayaha gaashaandhigga UK ayaa sheegay dagaalka Ukraine inay Ruushka kaga dhinteen 450 askari Bill Wallace oo u waramay idaacadda Radio 4 wuxuu sheegay ciidamada Ruushka in dalkaasi looga dilay ay ku ogaadeen xog sirdoon oo ay heleen Ruushka wuu fashilmay maxaa yeelay Putin wuxuu isu haystay xoreeye balse rabitaankiisa uma rumoobin wuxuu intaa ku daray ciidamada Ruushka inay ku hungoobeen qabsashada gigida diyaaradaha ku yaala waqooyiga Kiev muuqaalo baraha bulshada saacadii la soo dhaafay lagu baahiyay ayaa muujinaya taangiyada Ruushka oo dhex mushaaxaya wadooyinka waaweyn ee caasimadda Kiev wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa xaqiijisay inay gudaha u galeen mid ka mid ah degmooyinka deegaanka ee magaaladaasi sawirka ayaan u muuqday mid uu qaaday qof ka mid ah shacabka magaaladaasi degan asa ahaatee muuqaalkaasi ayaa xaqiijinaya inuu yahay mid sax ah oo laga soo qaaday gudaha magaaladaasi wixii ku soo kordha xiisadda iyo dagaalka Ruushka iyo Ukraine wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan waayahay markale kulan wacan golaha wadatashiga qaran ayaa aalada Zoom-ka ku yeeshay shir ay uga hadlayeen dhameystirka doorashada kuraasta dhiman ee golaha shacabka waxayna soo saareen 6 qodob oo ay ka mid tahay waqtiga cusub ee la soo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka oo ah 15 Maarso haddaba warsaxaafadeedka ayaa sidan u qornaa kulanka oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Puntland Siciid Deni Galmudug Axmed Qoorqoor Jubbaland Axmed Madoobe Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish kulanka ayay golaha wadatashiga qaranku uga hadleen ajendayaal ay ka mid yihiin xaaladda doorashada mudaynta soo gabagabeynta doorashada golaha shacabka xal u helista arinta deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharey
iyo xaaladda abaaraha ay ka taagan dalka. Golaha ayaa bogaadiyey horumarka laga sameeyey habsami u socodka doorashada iyadoo ilaa iyo hadda la soo doortay dhammaan 54 xubnood ee golaha aqalka sare iyo 175 xildhibaan oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka, taasoo u dhiganta 170% tirada guud ee xildhibaanada labada aqal. Golaha wadatashiga qaranku dood iyo falanqeyn kadib waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin in doorashada xildhibaanada golaha shacabku aysan ku soo dhammaan xilligii loo qorsheeyay ee 25 Febraayo 2022. Golaha ayaa isla qiray inay jireen caqabado dhowr ah oo sababay dib u dhacan, kuwaas oo ay ka mid yihiin xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan oo dowlad goboleedyada saameyn weyn ku yeelatay, xiisado amni oo ka soo kordhay deegaan doorashooyinka qaarkood iyo culaysyo ka jiray dhaqaalihii loo qoondeeyey fulinta doorashada. Haddaba iyadoo la tixgeliyey arrimaha kor ku xusan, golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay qodobada soo socda. 1. In doorashada dhammaan kuraasta harsan ee golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo ugu dambeyn 15 Maarso 2022. 2. Goluhu waxa uu isla qaatay in ra'iisul wasaaraha oo la tashanaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu u diro guddi soo qiimeeya xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbahare, kaas oo ka kooban xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo guddiyada doorashooyinka si uu uga soo tala bixiyo habka ugu suuragalsan ee doorashadaasi ku qabsoomi karto. 3. Goluhu waxa uu xoojiyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta qoondada haweenka ee 30%. 4. Goluhu waxa uu walaac iyo qayladhaan ka muujiyey xaaladda ka sii daraysa ee abaarta dalka ka taagan, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ka codsaday in la kordhiyo gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay. 5. Goluhu waxa uu shacabka Soomaaliyeed uga mahadcelinayaa dulqaadka iyo sida uu u garab istaagay qabsoomida doorashada. Iyo qodobka 6. Golaha wadatashiga qaranku waxa uu bogaadinayaa doorka iyo taageerada beesha caalamka ee laga maarmaanka u ah dhamaystirka doorashada dalka. Haddaba suurtagal ma tahay ama waqtiga cusub ee loo asteeyay in lagu soo gabeeyo doorashada golaha shacabka ma lagu dhameyn karaa? Waa su'aal hortaala golaha wadatashiga qaranka. Waa hagaag qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan. Fadlan subscribe saar kanaalkeena kadibna fura gambaleelka. Wararkeena kale haddaan eegno, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa in muddo ah ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasoo uu u joogo baadigoobka malaayiin dollar oo ay ka dhaceen ganacsato Soomaali Kenyaan ah oo si weyn uu u naasnuujiyey intii uu ahaa shakhsiga labaad ee ugu sareeya Soomaaliya. Sida ay muujinayaan xogo hore u soo baxay 3 sano ka hor, ra'iisul wasaare Khayre ayaa dhul 100 hektar ku dhow ka iibsaday meel u dhow deegaanka loo dalxiis tago ee Maasai Mara, kaasi oo dhaca koonfur galbeed Kenya una dhow xuduudda Tanzania, isla markaana ay maraan webiyada Mara iyo Talek si uu dib ugu sii iibiyo sanado kadib. Bartamihii sanadkii hore ayaa dib loo iibiyey dhulkaasi, waxaana soo iibsashada iyo iska iibinta fududeeyey qareen lagu magacaabo Aadan Daa'uud Maxamed iyo shakhsi kale oo magaciisa lagu sheegay Ismaaciil Gooni oo ka mid ah shakhsiyaadka fadhigoodu yahay Nairobi ee ra'iisul wasaare Khayre u haya lacagaha caddaanka ah. hase yeeshee layaabka ayaa ah in lacagtii dhulkaasi aysan dib ugu laaban akoonka ra'iisul wasaarihii hore, isla markaana ay kala qaateen qareen Aadan Daa'uud iyo walaalkiisa Cali Daa'uud oo Khayre u soo noqday la taliye sare oo dhanka siyaasadda, deegaanka iyo isbeddelka cimilada ah. ra'iisul wasaare Khayre ayaa dhamaadkii 2017 Cali Daa'uud u magacaabay xilka la taliyaha ra'iisul wasaaraha, hase yeeshee ujeedku wuxuu ahaa in dhinacyadu is-aaminaan, waxaana Cali la dejiyey hoteelka Durbin, halkaasoo uu ku qaadanayay ku dhowaad $15,000 bil kasta. Ugu dambeynse wuxuu wad u noqday lacagtii naasnuujiyihiisa. sidoo kale Khayre wuxuu qayb weyn ku lahaa in qareen Aadan Daa'uud oo ah shakhsi aad ugu dhow Uhuru Kenyatta uu guursado gabar uu adeer u yahay ra'iisul wasaarihii hore, si ganacsiga darafyada la isugu sii dhaweeyo looguna bedelo mid xidid iyo qoys. hase yeeshee qorshahaasi isna badbaado uma noqon lacagta Khayre. bishii Oktoobar 2020 Khayre wuxuu qareen Aadan Daa'uud ka dalbaday inuu qaban qaabiyo qorshaha booqasho uu ku tagayay Nairobi, waxaana la dejiyey hoteelka Radisson Blue oo u dhow madaxtooyada Kenya, halkaasoo uu kula kulmay xildhibaanada iyo senatarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya
oo ku dhowda is-aragaasi lacag ku qaatay. sida ay noo xaqiijiyeen ilaha kala duwan ee aan xogtan ka soo xiganay, kulankaasi ujeedkiisu ahaa olole siyaasadeed oo keliya ayay ku baxday malaayiin dollar, waana mid ka mid ah sababaha ay ganacsatadu dhammaadkii sanadkii hore Khayre ugu wargeliyeen in aysan wax lacag ah u hayn oo qarashaadkiisii uu horay u isticmaalay. Ra'iisul Wasaare Khayre oo lagu tilmaamo shakhsi galaangal badan ayaa la sheegay inuu hadda xarunta dalka Kenya u joogo sidii arrinkan loogu xalin lahaa qaab dhaqan ah, waxaana toddobaadkan fashilmay isku daygii koowaad ee ay isku horfariisteen odayaal ka kala socday labada dhinac. Xogta kulankaasi ayaa sheegaysa in odayaasha wakiilka ka ah ganacsatada ay ku doodeen in Ra'iisul Wasaare Khayre keeno xogta rasmiga ah ee lacagta, sida cadadkeeda, qaabka ay u gashay gacanta qareenka xilliga uu u dhiibay iyo wixii la mid ah, ama uu aado garsoorka dalka oo ay sharciga ku kala baxaan shakhsiyaadka uu ka dacwoonayo ee lacagta ka qaba. ha yeeshee tallaabadaasi ayaan suurtagal u ahayn Khayre. odayaasha wakiilka ah ee Khayre ayaa sheegay in lacagta ay qareen Aadan Daa'uud iyo walaalkiisa Cali Daa'uud ka dhaceen ra'iisul wasaarihii hore ay tiradeedu ku dhowdahay 20 milyan oo dollar, waana lacagtii ugu badnayd ee laga dhaco siyaasi Soomaali ah sanadihii la soo dhaafay. Khayre oo 3 sano iyo bar ahaa wasiirka koowaad ee xukuumadda dawladda madaxweyne Farmaajo ayaa xilka laga tuuray isaga oo aan la imaan wax xisaab xir ah. Ra'iisul Wasaare Khayre waxa uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee muddo badan ama sanado badan la shaqeeya madaxweynihiisa. National TV ayaa naga daawanaysaan. Si aad u hesho warar sugan oo xaqiiqo ah, subscribe saar kanaalkeena kadibna furo gambaleelka si wararkan halkan soo dhigno aad u hesho. warar aan ka helnay ilo sirdoon Israa'iil ka tirsan hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa xaqiijinaya cabsi laga qabo in Al-Shabaab ay isku dayaan inay qabsadaan mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. weerarkan oo la sheegay inuu dhici karo 5 bisha Maarso ayaa waxaa lagu waramay in Al-Shabaab ay doonayaan inay ku beegsadaan 3 degmo ee kala ah Yakshiid, Heliwaa iyo Dayniile. qayb ka mid ah degmooyinkan ayaa horay u ahaa meelo amnigoodu xun yahay, ayadoo Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin xiliyada habeenkii oo lagu arko qaar ka mid ah dagaalyahanadooda. inkastoo Al-Shabaab aysan inta ay qabsadaan ku nagaan karin degmo ka mid ah Muqdisho, haddana qorshahooda ayaa ah inay haystaan muddo saacado ah si ay ugu noqoto guul maskaxeed una ceebaystaan ciidamada ammaanka. toddobaadkii la soo dhaafay iyo bilowgii toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay weeraro kala duwan oo lagu beegsaday xarumaha degmooyinka Kaxda, Hodan, Boondheere iyo xarumo ciidan oo ku kala yaala degmooyinka Dayniile iyo Yakshiid. waxaase ugu qasaare badnaa weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday xarunta degmada Kaxda oo ay Al-Shabaab la wareegeen kana kaxaysteen 2 gaari oo ciidamada booliska ay lahaayeen. dhinaca kale waxaa maalmahan soo kordhay dilalka iyo qaraxyada ay Muqdisho ka geysanayaan kooxda Al-Shabaab, laguna bartilmaameedsanayo xubnaha dawladda federaalka iyo cid kasta oo la shaqeysa. tan iyo markii ay si rasmi ah guud ahaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ugu bilowdeen doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka, waxaa kordhay weerarada tooska ah ee Al-Shabaab ka fulinayaan magaalada Muqdisho. weerarada Al-Shabaab ay ku beegsanayaan caasimadda, gaar ahaan xarumaha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saldhigyada ciidan ayaa muujinaya habacsanaan dhinaca amniga ah iyo in hay'adaha amniga ay ku dhex milmeen arrimaha doorashooyinka, taasoo kooxda Shabaab u sahlaysa inay beegsadaan xarumaha ay bartilmaameedkoodu yahay. waayahay markana Puntland, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo maalmihii dambe ku sugnaa magaalada Boosaaso ayaa la kulmay isimada gobolka Bari. isimada uu la kulmay Deni ayaa kala ah Boqor Burhaan, Boqor Muuse Beeldaaje, Maxamed Beeldaaje, Ismaaciil Beeldaaje, Cali Beeldaaje, Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin iyo Beeldaaje Cali Beeldaaje Salaad. kulanka ayaa looga hadlay xaaladda guud ee gobolka Bari iyo guud ahaan Puntland, wuxuuna qayb ka yahay kulamada uu madaxweynuhu la leeyahay qaybaha kala duwan ee waxgaradka iyo bulshada gobolka Bari. sidoo kale kulankan ayaa diiradda lagu saaray arinta BSF ee dhalisay dagaaladii ka dhacay Boosaaso ee u dhaxeeyay ciidamada labada dhinac. kulanka ayaa imaanaya kadib markii isimada dhaqanka ay aqbaleen codsi uga yimid madaxweynaha maamulkaasi, kaasi oo ku aadanaa inuu la kulmo isimada si loo soo afjaro xiisada ka jirta Boosaaso. wada hadalladan cusub ayaa ku soo aadayo iyada oo Deni
uu dhaqangeliyey mid ka mid ah soo jeedinta isimada oo ahayd in gacanta maamulka dekadda Boosaaso laga soo saaro shirkadda B&O ee hoos tagta isutaga Imaaraadka Carabta oo ugu dambeyn aqbalay. madaxweynaha Puntland oo haatan Boosaaso ku sugan ayaa ujeedka uu u yimid ama u tegay waxaa sidoo kale qayb ka ah kuraasta xubnaha golaha shacabka Soomaaliya ee taala gudaha magaaladaasi oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi. halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteena YouTube-ka National TV. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena. inta ku kulmeyno wararkeena soo socda nabadgelyo.